Fountain of Life waxaa laga sameeyey geed Norway ka baxo waxaana la ogaaday geedkaas 30 iyo dhowr sano ka hor markii baaritaan lagu sameeyey Norway scientists-yaasha joogaan waxay ogaadeen markii Norway sidaad ogtihiin waxaa baraf aad iyo aad u daran baa ka da'o marka waxaa la ogaaday waxaa la arkay markuu barafka da'o geedka kaliya oo taagan oo nool wuxuu yahay waa geedkan Norwegian spruce tree la dhaho geedkaasna wuxuu geedayaasha kale uga duwan yahay markii la baaray wuxuu yahay waxay dhahaan disease free oo wax allaale waxa cudur ah dan la dagaalaa sidoo kale wuxuu yahay eternal waxay dhahaan ama waxaana weligood gaboobin oona isbedelin marka geedkaas waxyaabaha oo laga helo marka ama benefitska ay dhahaan ama faa'iidooyinka laga helo kuwa waxa ugu horeyso anti-inflammatory waaye anti-inflammatory waxay ka dhigan tahay xanuunka ama inflammationka bararka korka qofka bini'aadanka galo uu ka dhowrayaa wax allaale waxa sida arthritis-ka oo kale Soomaalida badankeed nagu dhacdo lagu xanuunka jilbaha xanuunka waxasi oo dhan buu qofka ka ilaalinayaa sidoo kale wuxuu ka ilaalinayaa prostate oo ah cancer ragga ku dhaco sidoo kale macaanka diabetes macaankana aad iyo aad ugu fiican yahay oo qofkii macaan qabo dad badan oo qaateen waxay soo sheegeen markii ay baareen dhiigooda blood pressurekooda meeshuu marayo inuu aad iyo aad hoos u dhacay oo meeshii laga rabay uu yahay sidoo kale xanuunka uu qofka ku dhaco oo diabeteska ahna inay aad iyo aad uga yaraatay sidoo kale waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah wadna xanuunkana aad iyo aad buu qofkii qabana nafisuu dareemi kii aan qabinna waa protection oo yani waa ka hortag sidoo kale cancerka breast cancerka ay dhahaan oo haweenka naasaha ka galo taasna aad iyo aad ugu fiican yahay riskigaas inuu yareeyo chansigu qofka helayo sidoo kale cancerka ay dhahaan colon cancer oo ah kan xiidmaha galo taasna wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay inuu qofka ka ilaaliyo iyo waxa ay dhahaan hot flashes ama qofka haweeneyda markuu caadada ka joogsado korkeeda waa iyada isbedelo oo ma arkana qofka marna kuleel marna qabow u qaadanayo taasna way ka ilaalinaysaa sidoo kale haween badan oo caadadii ka joogsato oo waaye markay qaateen oo Soomaali aan naqaano waxay soo sheegeen caadada sideeda inay u soo noqotay sidii ma arkin oo dad fiican waxyaabaha kale oo laga helo waxa ka mid ah uu ka ilaalinayo dementia ama ilowshaha badan oo saan ognahay dadka waaweyn badankood ku dhacdo waxa kaloo ka mid ah faa'iido laga helo timaha dad badan oo waxaa jiro intay qaateen timihii daadan jireen oo timihii hadirtaan maasha Allah u noqdeen inay ma arkin oo timo nool oo nafaqo leh rag badan oo timihii ka daateen timihii u soo noqdeen waxaa kaloo faa'iido laga helo ka mid ah metabolism ama calooshana way socodsiisaa dawadani dawana ma ahe waxa waaye health supplement ama sharoobadan calooshana aad iyo aad bay u socodsiisaa oo dad badan oo gaas qabi jiray waxay dhaheen gaaska uu naga degisa u qaadanay waxay kaloo u fiican tahay waxay dhahaan antimicrobial waxa waaye saa ognahay qofka bini'aadanka wuxuu leeyahay bacteria fiican iyo mid xun marka bacteriyada tan xunna wuu kaa reebi tan fiicanna wuu kuu deynayaa geedkani tan xunna wuu la dagaaltamayaa ugu dambeyn waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxaa waaye DNA-geena ama immune systemka qofka bini'aadanka ah sababtoo inta waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan wax allaale waxa cudur aad soo sheegtay ma qaba aniga marka su-aasha waxa waaye maxaa ugu baahanahay inaan qaato marka jawaabta waxaa waaye qof kasta u baahan inuu qaato sababtoo ay tahay waxaynu u baahannahay ka hortag haddiina xataa qabin ka hortag inaan u baahannahay marka waa kaas halkaas waxaa laga helaa insha Allahna haddii waxaan idinku boorinayaa inaad dhammaantiin gadataan oo isticmaashaan oo fiirisaan waxyaabaha kaloo ka mid ah oo hadda halkan aan kusoo sheegin waxaa ka mid ah eczemada ama xajiinta dadka qabo dad badan xajiin qaba intay isticmaaleen maasha Allah aad iyo aad wax badan uga heleen nabraha wax allaala waxa nabra way la dagaaltamaysaa sidoo kale lugaha jeexjeexda ku dhasho
aad iyo aad ugu fiican tahay dad badan oo isticmaaleen markay isticmaaleen dhowr beri hal wiig wadeen lugahooda jeexjeexi wixii dhan wuu ka baaba'ay marka yacni lama soo koobi karo waxana waa inta yartaa in yaroo kooban adinkana hadda markaad qaadataan adinkaa ka sheekeyn doontaan waxa kaloo ka mid ah dadka badan sheegaan waxa waaye hurdo dad badan oo seexan waaye jira waxay dhaheen hurdada ilaahay sideediisa fiican nagu soo celiyay waaga hore macaamiisheena sharafta leh Fountain of Life waxay idin keentay daawooyin tayaysan waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada idinka muuqda iyo website-ka waxaadna ka heli kartaan labada wadan oo kala ah Soomaaliya iyo Canada ku soo dhawaada Fountain of Life